aqoontiyo gogoligeeda gunteeda asaasideeda guudka sare taagideeda ardaydiyo garabgalkooda macallimiintiyo garashadooda ardayaan gaabinaynin macallimiinaan gaabinaynin iyo xiisadaan gaasiraynin tacliin loo galab caraabo dadaal lagu baadi doono xishood iyo akhlaaq sarraysa hami iyo tacliin sarraysa أحمد على قارو ياشا مناسبة وهاي مد لو dhiirigelinayo iyo isla markaana abaalmarino lagu guddoonsinayo ardaydii sanad dugsiyeedkii 2017-2018 ee dugsiga hoose dhexe ee Axmed Cali Xasan kaalmaha hore ka galay imtixaankii dugsigaasi ayaa lagu qabtay hoolka dugsiga Axmed Cali Xasan ee magaalada Ceergabo waxaana munaasabadan oo ahayd mid bilan oo boqoraneed isla markaana si heersare loo soo agaasimay ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag mas'uuliyiinta guddoonka waxbarashada ee gobolka Sanaag macallimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badnaa waxaana ugu horeynba ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay munaasabadan maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Axmed Cali Xasan Axmed Abakar Cismaan waxaan u qabanay ay daarantahay xalfadanu qodobka koowaad waxa weeye dhiirigelin aanu ku dhiirigelinayno ardaydan halkan fadhida oo ahayd ardaydii sanad dugsiyeedka 2017-18 wixii eed ka hooseeya ilaa 2 ilaa ulo ka sareeya aanu ku amaan marinayno kaalmihii ay galeen ee dugsiga u galeen iyo wixii ay aanu ku amaan marin lahayn ayaanu horta u qabanay qodobka labaad ee aanu u qabanay waxa kamid ah inaan iyana waalidiinta halkan ka soo qayb gashay qaybta caruurahoodu wax qaadanayaan iyo qaybaha kale ku dhiirigelino inay inta wax qaadanaysa kaliya aan ku koobnaan laakiin bari ka maalin inta kalena insha Allah ay nala soo dhiirigeliyaan maadaama de waalidku yahay rukunka koowaadba runtii ilmuhu wax ku barto marka wasaaradda waxbarashada iyo macallimiinteeda iyo dugsiyadeeda laga tago aanu ilmihii la'aantii waalidkii wax u baran kareen iyana waxaan doonaynaa inaanu maanta halkan annagoo ugana mahad celinayna sida wanaagsan u soo ajiibaan fursadna kaga faa'iideysanayna inaanu kuna canaanano oo runtii de waxa la yiri faraska waxa usha loogu dhufto waa inuu de teedalka inuu ka sii dheereeyo waalidka maanta fursadda waxaan u helay inaanu isna bal de teedal ku dhufano inuu de intaa bal ka sii de dadaal weynaado oo de ardaygii kaligii nagu noqday qodobka saddexaad waxa weeye inaan u mahad celino hay'adaha nala shaqeeya oo ay ka mid tahay keer iyo nagaad oo naga gacan siisay inaanu sanad dugsiyeedkan aanu qabano ardaydan dhiirigelintooda iskuulkaygan markaan anagii macallimiintu isla eegnay fursada ayaan uga faa'iidnay dhalinyarada iyo waalidiinta dartood waxa kamid ah inaanu intii aan anigu sanad dugsiyeedka intii aan hayay iskuulka oo ahayd muddo iska kooban oo yar anigii macallimiintu aan ka tashanay inaanu wax ka bedelo iskuulka waxa kamid ahayd inaanu insha Allah aanu soo saaro arday aan uga abaal sheegin inaanu adduunyo ka qaadano laakiin aanu uga abaal sheegin inaanu cilmi baro waxa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay khudbado la xiriira cilmiga ay barteen qaar kamid ah ardayda وفي جهل قبل موت العلي وأرشاده قبل قبور فإن أمره ويعمل فهو أمر يعمل إنسان. Education is a basic human right and education is a basic and self-lift everyone is student have a community and 25-70 under not go in schools and have children. intaasi kadibna waxa hadalka la wareegay xubno ku hadlayay afka waalidiinta macallimiin gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo ku dheeraaday ahmiyadda waxbarashadu leedahay hadalkii waa la dhameeyay laakiin iskuulka iyagu wuxuu ku yaalaa daan miyay xigtaa maadaama uu daan miyay xigta yahay waxaan weydiisanaynaa maxaan ku raadayay mas'uuliyiinta inay anaga aad noo eegto ilgaarana lagu eegto way tuulaanba ka tirsanay anagu tartankana runtii waxaan jecelnahay dhammaan 1 to 8 inaan ku soo celino iskuulada oo dhan sidii ahaan jireen sida waxbarashada maxaa loogu tartamo iskuulku wuxuu leeyahay girls and boys clubs ama girls and boys forum gudiyo ardayeed buu iskuulku leeyahay oo inama iyo hablaba ay ka kooban yihiin fikirkana iyagu ka yimi iyo maamulkooda iskuulka marka run ahaantii si hor u dhaca waxaan ugu sii hambalyeynaya ardayda jaarisadahan la guddoonsiin doono oo guuleysanaya waxaan kaloo aad ugu mahadnaqaya mas'uuliyiinta munaasabadda nagala soo qayb galay dawladdu waxay ballan qaaday sanadkan laga bilaabo inay siilayso buugaagta ardayda madaxweynaha ballan qaaday taasina waa dhiirigelin oo waynu helaynaa insha Allah marka waxa weeyaan hawlahan oo dhan haddaan la iskaashan ka hay'ad ahaan ka guddoon ahaan ka maamul ahaan dugsiyaan la iskaashanin farqi fool ma dhaqdo
iskaashi baa wax ku yimaadaan inakuna ubadkeenna aynu si isku mid aynu u dhiirigelino ma aha maanta kuwa halkan ka qaadanaya wax iyagoo kaliya ta wax may baranin laakiin halka maanta aan jaayisada la siinayn seegay ayuu kan ilaahay solan siiyey anaguna aad baan u soo dhaweynaa wixii aanu magaranaysaa haddii alla bakuray anu kolley waxaan ku deeqayaa inaan gelika dambe gelika hore waan shaqeeyaaye gelika dambe aan ka qayb qaato biro macallimiinta voluntariga ah wasaaradda waxbarashada weli wax cagaba kama hayno iyo wax dhiirigelina iyo wax ay tiraahdo ardayga maanta intaa ku abaalmariya taasina waxay dhiirigelinaysaa in lagu ka hadlayaa in la isku xidhnaado oo ilmihii sidii wax loo wada bari lahaa oo waalidkii iyo macallinkii iyo maamulihii intiiba iyo iskuulkii intiiba ay isku xidhnaadaan intaasoo dhan marka la helo waxaa la helayaa ilmo tayo leh ugu dambayntiina waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan isagoo halkaasi kula sii dardaarmay ardayda macallinku wuxuu ku cawday ardaygan waa laga keenay dib dambana lagu soo noqon waa runtii waa gar waayo ardaygan loo keen in hebel helbeeye uu garanayaa baa laga yaabaa haddana dee wax weeye cid kale uguma imano dee iskuulkiiba ma soo gaarin hadduu doono bil isagoo aan soo gaarin baa laga yaabaa in la go'aado gunaanadkiina waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii sana dugsiyeedka halka maamulka iyo macallimiinta lagu guddoonsiiyey shahaado sharafyo Siciid Muuse Qurbaawi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Ceergaabo.